dhoola cadaynta iyo qosolka jawi farxad leh oo degan ayay qofka gelisaa. koox dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Djibouti ayaa soo jiidatay indhaha qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada kadib markii ay soo bandhigeen muuqaallo goos-goos ah oo majaajilo ah oo lagu maadeysto oo dhalinyaradu aad ay u soo jiidatay. fikradda kooxda lagu aasaasay waxa ay soo bilaabatay sanadkii 2019 waa sanadkii hore. warbixintan oo dhameystiran oo kooxdaasi waxa ay qabtaan iyo sida ay wax u jilaan waxa soo diyaarisay noo haysa Bushra Nuur. waa koox dhalinyaro ah oo isku yimid si ay u madadaaliyaan Soomaalida isticmaasho baraha bulshada. waxay ku sugan yihiin Djibouti, wadan lagu xasuusto hal abuur dhanka majaajilada ah, balse iyagu waxay adeegsanayaan teknoolajiyadda casriga ah iyo hanaan ka duwan kii awoowayaashood. ilaa yaraantaydiiba waxaan waa waxaan jeclaabo ahaa weligeena waxaan aaminsanaadii wax aad jeceshid unba meel ka gaari kartaa ama heer qayb ka qaadan kartaa marka wax aad jeceshid. marka asxaabtayaan production wala lahayn oo hawl aan wala wadnay video ba marka wala duubnay ahayd hindigi iyo Soomaali aan isku daymelaanj gareeno anagoo hindi matalan oo raajaba la oranayay. marka Bollywoodkii baan dhex tagnay ahayd oo atmosphere-ka yare Bollywood kan keenay ahayd oo walaal aad loogu wala qoslay ahayd oo kii noogu horeeyay way ka mid ahayd. dal fursadaha shaqo ee dumarka ay aad u kooban yihiin ayaa haddana shirkaddan waxa aasaasay 2 hablood oo sawir qaadayaal ah, waxayna taasi sababtay in dhalinyaro badan ay rajo u abuuraan. wax kaliya uun baan rabnay inaan meel horta annagu aan ka shaqaysan karayno inaan abuurno, taas mid bay ahayd. talabaadna inaan abuurno meel dhalinta wadankeenu ay iman karayaan oo waxay maanta fikradahooga soo dhalin karayaan oo film ay ka sameyn karayaan, showye ay ka sameynayaan. waxay meel la iskugu iman karayo, wax la isweydaarsan karayo oo wax mustaqbalka wadankeena wax badan ku soo biirinaya ay ka dhalan karayso. sheekooyinka majaajilada ah kuma sameeyaan luqadda Soomaaliga oo kaliya ee sidoo kale waxay ku sameeyaan afka Faransiiska si ay u haqabtiraan bulshooyinka kala duwan ee Djibouti. artistka ninka la iraahdo waa ninka message-yaal intuu tabiyay ee tahay sidii bulshadu ee ugu cilmi qaadato oo isbedel u yimaado. qosolkuba wax lagu farxo weeyaan oo ma garataan adoo murugeysan ba video qosol daawan kartaayo iska farxaan baa noqon kartaa. shaydaanka iska naar doctor wallahi saddexdii lacag ma taamixi. haddaba mustaqbalka maxay rajeynayaan siday soo dhaweeyeen Soomaalida baraha bulshada isticmaasha? wallahi shicibku si fiican buu soo dhaweeyeen waxaanu qabanoo dhan barnaamijyada iyo sketchadan yar ee aad aragtiin qosolka badanba. waayo maanta waxay arkeen in la sameyn karayo. horta ta ugu horeysa waa ta labaad waxay heleen meel iska dhex arki karayaan, meel ay iman karayaan oo iyaga laftoodu sheekadooda qisadaha ka fikiraan, waxay madaxa ku hayaan kasoo kaga sheekeyn karayaan. maanta shacabku baan loo tuma aadna waan ugu faraxsanahay waayo annagu waxay noo tahay success. iyadoo baryahan dambe ay soo badanayeen dhalinyarada wax ku baahisa baraha bulshada, haddana tiro kooban unbaa baaqi ku noqon karta maskaxda dadka. Bushra Nuur Maxamed, BBC.